أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. سبحانك من الله بارك الله فيكم يا رب العالمين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا إلهي وشكره سبحانه وتعالى. هدين حولها أنا هيسنو أنا لبحنا أو صدقة يسنو وصدقة جارية. سيدك قفك وحكو درسنا وأتقرأ كرتان قفك عمل كيسو نروقها إلا بثلاثة صدقة جارية وشيء أصلوي علماء الأول فردنا. سيدك أنا أتقرأ إنسان حلق على النسي فوقي دي إيه أنت الدروس اللي أخلي جري iyo mashaayikhdii iyo kuwii ka aflaxay intay tiradooda u gaarayso taa ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo rabaa inaan ku booriyo barashada diinta islaamka iyo inaan wax baranno oo diinteenna barannaay innaga iyo ubadkeenna wax weyn bay inoo tahay. waxaan aada isugu dayeynay inaan bal musaabaqada taxfiidka qur-aanka ah inaan waxoogaa sidii hore kor uga qaadno oo aan isku dayno bal dugsiyada iyo intii la tartansiiyo ilaa dadku adduunya u bateen. marka maanta la yidhaahdo waxaa jirta musaabaqo qur-aanka ah oo intaasaa lagu bixinayaa sanadkii ugu horreeyey meeshaanu ka bilownay sanadihii daba ardadu say noqdeen farqi weyn baa u dhexeeya. sanadihii hore waxaa laga yaabaa mid laba saddex laakiin hadda sanadkii ugu dambeeyo kale waad garanaysaanoo kaalinta koowaad intaasoo qof baa gashay ta labaad saasay ahayd. in lagu tartamo oo lagu dhiirigeliyo oo ganacsatada iyo waalidka iyo cid waliba aan ku tartanno musaabaqada qur-aanka iyo diinta barashadeeda iyo tacmiirka masaajidda iyo dhismaha masaajidda iyo in masaajidada kulligood balaan wada dhisanno oo dugsiyada qur-aanka ee iskuullada waa la dhisaa waa la hagaajiyaa laakiin dugsiyadii waad aragteenoo macallinkuna sijaayad buu ku fadhiyaa meel yaro boor badan baa la fadhiyaa. inaan iyada lafteeda intaan u soo jiidsanno aan noolayno diinteenna oon meelaha lagu baranayo iyo dadka wax dhigaya iyo cidda baranaysa kulligood aan ka wada dadaalo waa shay asal inoo diin inoo fiican. taas waan rabaa inaan booriyo oo idinka keliya ma annaguna aan isku boorino ka mas-uuliyad ahaan sababtoo mas-uuliyad baa naga saara. waxaan rabaa inaan idinku soo ururiyo inaan masaajidka soo booqdo waayo guddidaan la soo hadli jiray waan la socday inta badan xaaladiisu kolba meeshay marayso. ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala. inaan intaana masaajidka guddidii dhisteena uga mahad celiyo una ducayno aanan idinku booriyo barashada diintu waxay inoo taraysa inoo tahay dhisidda masaajidda iyo sadaqada jaariyada inuu la baxo oo qofka ganacsada ee bakhaylka ow markaad dhimato ee waxaystow camalkaagu wada go-aya laakiin masaajidkan saaka dhagaxaad ku darsatay weligii inta masaajidkaa dhisnaanay way kuu jiraysaa ee ha ku bakaylna waxoogaa guntiga lagu hayo intaad la soo baxdaan masaajidada ku dara oo dugsiyada dhisa oo ceelasha qoda oo waddooyinka waxeeya oo haddaad wax kala weydaan xataa geed meel ku abuur waxbay kuu taraysaa oo waalidkaa wax ugu darsoo qaalidka waxa ugu baarinimada fiican qofka waxaa la camalkiisa ilmaha dhashay oo kuu soo duceeyay seebu kugu soo duceey markaad marka hore adigu diin ku tarbiyayso oo aad diin ku hagto oo diin ku soo koriso oo aad barto sadaqada iyo waxay u tarayso oo aad barto xoolaha siduu infaaqsanayo
oo aad barto waxaasoo dhan adu markaad dhibato ilmahaagu wuxuu kaaga dayanaya beri waxaa samayn jirtay laakiin haddaad adigu tiraahdo warbax oo waalidka aadan aqoonin oo weliguna ka maqan adoo hore waalidkii baan wax meeshaa ugu darsanaya oo adoo baarinimo waalidka u falaya una maqan kuwa dibadaha jooga ee yidhaahdaa maad dhigatid hadhow maxaa la yidhaha markay dadku duqoobaan waxay qaadan jireen awa qoladii dibadda joogtay beeshankaaga wixii aad qaadan lahayd adigu hadda sii dhigo hadday ku arkaan adoon waalidkaa xusaynin oo waxba u dhigaynin oo wax taraynin adigana hadhow ilmaha musaao bay ku odhanayaan oo waxay odhanayaan waxaad adhigi wadi ma beeshankii maxaad u dhigatay markii hore shaqaynaysa marka intaasaan rabay inaan idhaahdo khayr allah idin siiyo guddiga masaajidka allah barakeeyo intii dhistay wax ku darsatay ilaahay liibaan ha siiyo ilaahay aakhiradooda ha ugu daro miisaankooda inta kalena masaajidada inaga duqoobay intaynu wada duusanno qaaraanka kow aniha laygu soo qoro inta kalena ganacsadaan ku qorayna masaajidadeenna aan sida ka wada dhiganno soo sax maaha aan kuwa waaweyn wada dhiganno insha allah oo sida masaajidkani markaan xeebta ka soo degno waanu yaro seexseexan jirnay isagoo bahal guduuda shamiito guduudan laho meesha haddaad barkin yar hesha kugu filaanaya maantana waad arkaysaan sidii aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasaan rabaynayna